dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi xilligii uu cirka isku shareeray oo ahayd intii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Donald Trump. Mareykanka ayaa bilaabay inuu dareemo kuleelka kaga imanaya dalka uu madaxweynaha ka yahay Kim Jong-un ee Kuuriyada Waqooyi. kadib waxaa la bilaabay isku diyaarinta dhibaato kasta oo kaga iman karta Kuuriyada Waqooyi iyo hogaamiyaha dhalinyarada ah oo ay talaabo kasta suurtagal ka tahay. duleedka magaalada Albuquerque ee gobolka New Mexico, koox khubaro oo ka tirsan ciidamada cirka Mareykanka ayaa soo saaray hub dhowr nooc ah si looga hortago weerar kasta oo nukliyeer ah kaasi oo Kuuriyada Waqooyi kaga iman kara. hubka ayaa ah aalad aan wax diri karin oo adeegsanaysa mowjadaha elektarooniga ah ee aan wax u dhimi karin bini'aadamka, waxayna adeegsadeen tiknoolajiyad la mid ah tan lagu sameeyo kulaylisada cuntada. sida laga soo xigtay tiro khubaro militari ah oo la hadlay laanta afafka qalaad ee BBC Mundo, ujeedada ugu weyn waa in gantaalada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi laga dhigo kuwa shaqayn waaya oo aan waxyeello geysan. hubkan isticmaalaya mowjadaha elektarooniga ah ee laga sameeyo kulaylisooyinka cuntada maaha markii ugu horeysay ee uu Mareykanku sameeyo gantaal isagoo adeegsanaya elektaroonig. Sharon Weinberger oo ah tiftiraha guud ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay BBC Mundo in ay ciidamada cirka ee Mareykanku baadheen mowjado elektaroonig ah kuwaasi oo sidoo kalena hub ahaan u adeegsadeen muddo haatan laga joogo 20 sano. khabiirka ayaa sheegay in qalabka raadiyaha ee elektarooniga ah loo adeegsaday Afghanistan iyo Ciraaq si loo qarxiyo bambooyin iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. laakiin khubarada militariga Mareykanka ee adeegsiga bambooyinka elektarooniga ah waxay sheegeen in arrintani ay soo bilaabantay 10 sano ka hor. Pentagonka Mareykanka oo sameeyay cilmi baadhis militari oo isdaba joog ah ayaa sanadkii 1960 loo xil saaray inay falanqeeyaan saameynta mowjadaha elektarooniga ah ee ay ku leeyihiin bini'aadamka. wax walba waxay bilowdeen kadib markii dowladii Midowgii Soviet ay bombo noocaas ah ku weerartay safaaradii Mareykanka ee Moscow, ayuu yiri Weinberger. inkasta oo khubaradu xaqiijiyeen in dhowr tijaabo la sameeyay si loo xaqiijiyo waxtarkeeda, ilaa iyo hadda waaxda difaaca waxay haysaa macluumaad ku saabsan hal xabo oo kaliya. tijaabadii ugu horeysay waxay ka dhacday Saxaraha Utah sanadkii 2012, kaliya 3 sano kadib markii baadhitaankii hore ee hubka noocan ahi uu si rasmi ah uga bilowday shaybaadhka ciidamada cirka ee xirada Kirtland. sida laga soo xigtay Fisher, bishii Oktoobar ee sanadkaasi diyaaradda B-52 ayaa gantaal elektaroonig ah ku garaacday meel cidla ah oo ilaa 400 oo mayl u jirta. balse sida hubka noocan ah loogu isticmaali karaa in lagu curyaamiyo gantaalada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. hubkan isticmaalaya mowjadaha elektarooniga ah ee laga hortagayo nukliyeerka. afayeen u hadlay saldhigga militari ee Kirtland ayaa sheegay in aan soo saaridda hubka noocan oo kale ah loogu talagelin inuu difaac toos ah ka noqdo gantaalaha nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. si kastaba ha ahaatee, isticmaalka iyo ujeedada hubkan ayaa lagaga hadlay aqalka cad in lagu arrimiyo Mareykanka, ayay yidhaahdeen labada sargaal ee u waramay telefishinka NBC ee Mareykanka. sida laga soo xigtay cilmi baadhe Blick, mid ka mid ah saameynta aan muranka lahayn ee mowjadaha elektarooniga ahi waa awood laga hortagi karo qaraxyada gantaalada nukliyeerka iyaga oo curyaaminaya madaafiicda. hubkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu joojiyo gantaalaha nukliyeerka, waxayna gantaalka ka hor istaagayaan in uu qarxo. kuleelisooyinka elektarooniga ah waxay sidoo kale shiili karaan wareegyada korontada, waxayna ka ilaalin karaan qarax iyo inuu shucaacu ku faafo aag ballaadhan, ayuu yiri cilmi baadhe ka tirsan xarunta istiraatiijiyadda caalamiga ah ee Washington. haddii Mareykanku uu gantaal ku rido Kuuriyada Waqooyi, waxaa loo arki doonaa gardarro iyada oo aan loo eegaynin nooca gantaalka uu yahay. Mr. Blick wuxuu ku doodayaa in tallaabadani ay u badan tahay in ay yeelan doonto cawaaqib fog, sababtoo ah dalka Kuuriyada Waqooyi ma sugi doono inta laga ogaanayo ujeedka gantaalka. taa beddelkeeda wuxuu Kim isticmaali doonaa fursad uu kaga aargoosto isagoo ridaya gantaalo badan oo uu kaga jawaab celinayo. hadda lama oga waxa uu samayn doono kadib marka uu shaqada ka tago. hubka elektarooniga ahi wuxuu door weyn ka ciyaari karaa howlgalka militari ee ka dhanka ah Pyongyang. waa haddii taasi dhacdo, balse sidoo kale xal uma aha hanjabaadaha Kuuriyada Waqooyi ee hubka nukliyeerka, ayuu hadalkiisa ku gabagabeeyay Mr. Blick.
dhinaca kale guddida doorashada heer federaal ayaa soo saaray jadwalka cusub ee doorashooyinka. war-saxaafadeed ka soo baxay guddida doorashooyinka heer federaal ayaa lagu shaaciyey jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo sida lagu sheegay qoraalka guddida lagu saleeyay heshiisyadii laga gaadhay qabsoomidda doorashada. si waafaqsan mas'uuliyadda guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal ka saaran hirgelinta doorashooyin degdeg ah waqtigooda ku dhaca xor iyo xalaal ah iyo baahida loo qabo in la bilaabo geedi socodka doorashooyinka iyada oo laga hortegayo dib u dhac dambe oo ku yimaada. guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxay shaacinayaan jadwalka ugu dambeeya ee doorashooyinka iyadoo la raacayo shaxda doorashada ee 29 Juun, habraacyadii 17 Sebtembar iyo 27 May lagu heshiiyey oo ay si wada jira u saxeexeen dhammaan madaxda maamulada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka guddida. 17 ilaa 23 bishan ayaa loo asteeyay in lagu soo gudbiyo liiska musharaxiinta kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo laga sugayay madaxda maamul goboleedyada dalka. 25 ilaa 28 bisha Julaay ayaa loo asteeyay in la qabto doorashada senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, iyada oo natiijada doorashooyinka lagu dhawaaqi doono 1 bisha Agoosto ee sanadka 2021. 2 ilaa 11 bisha soo socota ee Agoosto waxaa la soo xuli doonaa guddida soo xulaya ergada soo dooranaya xildhibaanada golaha shacabka, iyada oo 15 bisha lagu dhawaaqi doono xubnaha guddidaasi. 20 ilaa 25 Agoosto ayaa loo asteeyay in la soo gudbiyo liisaska ergada doorashooyinka, iyada oo 10 Sebtembar la shaacin doono liiska kama dambaysta ee ergada. waxaana 11 Sebtembar ilaa 10 Oktoobar la siin doonaa tababar la xiriira qaabka doorashada loo qabanayo. 7 bisha Sebtembar ayaa loo asteeyay in la qabto araajida musharaxiinta golaha shacabka, waxaana 12 Sebtembar lagu dhawaaqi doonaa magacyada musharaxiinta golaha shacabka. 20 bisha Sebtembar ilaa 5 bisha Oktoobar waxaa dhici doona ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah iyo shahaadasiinta xildhibaanada la doortay, iyadoo ugu dambeyn 7 Oktoobar la dhaarin doono.